agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Siciid Cabdullaahi Calasow ayaa maanta soo xiray shirka soo bandhigida iyo ansixinta qorshaha istiraatiijiyadda hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo muddo 2 cisho u socday mas'uuliyiin ka mid ah dawladda heer federaal iyo heer dawlad goboleed wakiillo ka socday warbaahinta ururada bulshada rayidka ah iyo xubno ka yimid maamulka gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland aadan gaarane oo ku hadlay afka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha dawlad goboleedyada ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta in la ansixiyo istiraatiijiyadda hanaanka dib u heshiisiinta qaranka laakiin aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka istiraatiijiyadan iyo hanaankii dib u heshiisiinta qaran iyo qorshihii dib u heshiisiinta qaran iyo xeyndaabkaba muddo runtii aan la soo riixaynay in maanta meeshan aan ku ansixino qaabkii maaragtay loo daadejin lahaa Cabdicasiis Colaad oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa sheegay maalmihii uu socday shirkan in ay shaqo badan qabteen dadkii ka qayb galay dhammaan kooxii afartii kooxood koox kasta buug ka mid ah buwaagtii istiraatiijiyada ayay saxiixeen marka hawshu meel fiican bay noo maraysaa runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyo doorkii ay ka ciyaareen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Siciid Cabdullaahi Calasow oo soo xiray shirka ayaa u mahadceliyay dadkii ka qayb galay shirkan oo uu sheegay in ay waqti badan geliyeen ansixinta sharcigan aad ka raali noqoteen waxna ku darsateen istiraatiijiyadu wax anfacdan ay noqoto oo daadagsan istiraatiijiyadan waxaa barbar socon doonta hadduu Ilaahay yiraahdo istiraatiijiyad la mantaana oo daadagsan oo heer gobol degmo tuulo gaari doonto ay diyaari doonaan federal member states ka hadduu Ilaahay yiraahdo dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin waqtigiina iyo wacyigiina iyo contribution ka geysateen وانا aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa shirkan waa noo xiran yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan oo Muqdisho ka socday 2 cisho ayaa waxa lagu ansixiyay qorshaha istiraatiijiyadda xiriirka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Liibaan Cabdi Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho